بسم الله الرحمن الرحيم. بارك الله لك. اللهم بارك اللهم وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون لا يرجعون والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قالوا بسم الله الرحمن الرحيم. waxay naga raali haada السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan rabaa hal kelmad oo dardaarana inaan idin soo gaarsiiyo. kelmaddaas waxa weeyaan awalan marka ugu horeysa ilaahay baa mahadda iskale isu keenay maanta inaan weliba ku kulanno awala markii ugu horreysay ee makhaayad Soomaaliyeed laga furo magaaladan. runtii farxad bay noo tahay, waa maalin taariikhi weeyaan, innagana waxay magaceena kor u qaadaysaa. marka walaalaheen ganacsigan furtay ilaahay waxaan uga baryo inuu barakeeyo, innagana ilaahay inooga dhigo meel aynu furfano ku nasro magaceena ku yeelano. dardaaranka labaad waxa weeyaan maanta magaalada waan degayn markii hore. macnaa Soomaalidu dad waxay magaalada degan laakiin aan la arkin. waxaad ogaataan maanta ishu wayna qabanaysaa, waa layna arkayaa. waxaa la oranayaa halka Soomaaliya furatay makhaayadda Soomaaliya iskale, makhaayadda Soomaaliya furtay ganacsiga Soomaaliya iskale. marka magaceena inaad kor u qaadaan baa loo baahan yahay. waxaa loo baahan yahay inaan ilaalino ordunka iyo discipliinka magaalada ay ilaalino. kow waxaa loo baahan yahay magaceena inaan ilaalino. laba waxaa loo baahan yahay inaynu ilaalino saxmadda iyo wadadan nidaamkeeda aan ilaalino oo aan laynagu arag inagoo meesha ku buuqayna ama isku haysana. ganacsiganna quruxda badan arkaysaan, xoog baa la geliyey, xoolaa la geliyey, caqli baa la geliyey. inaan ilaashano kulligeen, shakhsi ama laba shakhsi baa iskale, laakiin kulligeen bay naga dhaxaysaa. marka waxaa loo baahan yahay walaalayaal magaceena maanta waa layna arkaya, waa laynoo fiirsanayaa. soomaalidii maxay sameeyeen, maxay qabanayeen, xaggay taagnaayeen. marka fadlan bifadlan waxaan ku codsanayaa inaad ilaalisaan nidaamka, inaad ilaalisaan Soomaalinimada, inaad ilaalisaan islaamnimada. intuba maanta inay korteeni taagan tahay waa laynoo fiirsanayaa. waxaa la oranaya dadkani maxay ahaayeen haddii marka inagu aan noqon dad isku xidhan oo ganacsigoodana ilaashada, nidaamkana ilaaliya, magaceenu kor buu kacayaa. ta labaad waxaan doonayaa ganacsigani innaga dhaqaajinayna. waxaa loo baahan yahay shilinka aan geynayno meel kale awalan inaan ku soo horeyno halkan, inaan fadhiisano meeshan, aynu wax ka cuntayno, aynu ilaalino, macnaha aan gacan qabanno hawshan. meeshan isugu imaan lahayn, carruurtaynu isugu imaan lahayn, faamilnu isugu imaan lahayn weeyaan. marka waxay ganacsigana ha noqdo kow, marka kowshaa u baahanahay halkan inaan imaado, aan ka caddo.
walaaladeen waan u mahadcelinaya Allah idin barakeeyo Allah idin xafido insha Allah bidnina ku xirseynaya ganacsiga kala badanna inay insaan inoo imaan doon hadii Ilaahay daado laakiin waxaan doonaa middan inaan kor u qaadno oo ragii hawshan macnaha maanta abaabulay aan dhiiri galno barakallahu fiik haloo duceeyo walaaladeen والله سنتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرتج جمعة مبارك لمانتين والحمد لله كل هذه مانتا إنه لو غفري مقاحي الصومالية ذا يمشي قلاد با إن بدن بينه هين إنه ضد ما في الدنيا وقت وإن بدن بينه كل بوع ويا مالي دللي هين عبريني ما أنت وعلو باهي إلا بدأ إيري الصومالي دوجيني يسمى الكره إني ولا الكيدو كنتو وحويان سجن شرف يعيسي كرامه وطاين ولاله وحويان ميل وسميه وكوريو إن بدن وكفكري سيدو وحويان ضد أمة الصومالية ده بدن جلاد باخدجن سيدو ميل وكفوري له الحمد لله ارتم يرد عصب وسود ويننا وحلنا يا الله بركيه مرتدا كسوق قيب بشان أنا قلنا كم ده مرتدا وحلنا الحمد لله waxaan leenahay waxa weeyaan martida badan ee ka soo qayb gashay nooc walba leh waxa weeyaan aniguna kamid ahay waxaan leeyahay aad baan u mahadsannahay aadna waad mahadsantihiin meheraddan waa meheraddeennii meheraddan waa meherad Soomaaliyeed aynu ka war hayno waxa weeyaan nin walba ninkiisu eeganayaa halkan aynu leenahay hadda kadib koobka shaahid meel kale geynaysiina waxa weeyaan halkan keento aad baan ni salaamaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عبد الفتاح بلدها مقالة منشن لا طبعا دقنا هاي ما أنت سوار كيسين مقالة منشن لا طبعا حلا قفري مخايط أنا نقفر أحسن لنا مخايط أصلا قفري فرصة في عن سين سادتك مقالة دقن سدي مال ومعدن أو تتصل مالي أركان أو شاك عبد كران مركب ما شاء الله wir sind zufrieden das erste Café in Mönchengladbach das eröffnet worden ist durch einen somalischen Inhaber und jetzt haben wir auch die Möglichkeit, die Somalis, die hier in der Stadt leben, in ein Café zu kommen, dass viele Leute ihrer Landessprache sitzen, mit denen sie sich unterhalten können und inshallah in Zukunft, dass es mehr Unternehmen geben wird, die andere Projekte inshallah starten werden. Wir sind sehr zufrieden. Alhamdulillah. Soomaali haradna ay mushkilad bax aad baan ugu faraxsanahay maadaama aanu helnay meherada aanu leenahay meherad Soomaali iska leedahay aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waxa soo Soomaalida awlis ma arki jirin maqaaxiya jaanibi iyo meelaasi ku dhuwan jireen oo geli jireen laakiin maanta waa maalinteedu rasmiga ee Soomaaliyeed meel ay leedahay la helo isugu yimaado culimada dhamaantood aad iyo aad baan salaamay waxa leeyahay waa halkii maanta aynu iska muujin lahayn inuu Soomaaliyeedna aynu magac kor ugu qaadi lahayn in noqon lahayd bulsho ummadda kale ka dhex muuqata oo maxaa ku raasku gobol isku mid ah magacooduna meel gaaro marka aad iyo aad baan salaamay walaalkeen waxa leeyahay Allah ku barakeeyo maqaaxidaada ma sha Allah